subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garoobaha wararkeena subaxnimo waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay 17 Julaay sanadka 2021 saaki oo sabtiyana saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn ee wararkan waxa qayb ka farmaajo oo wajahaya fariimaha jabaad iyo duulaan ka dhana hadaba ciyayta cida fariimahaas kaga imaanaya waa maxay sababta farmaajo hadda loo eedayo dhaqdhaqaaqa farmaajo iyo duulaankiisa iyo waliba sidoo kale hanjabaada Muuse Suudi Journal inda cadde iyo macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxa kale oo saaxiibayaal qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka heer federaal oo soo saaray jadwal cusub oo doorashooyinka Soomaaliya goorta jadwalkan uu bilaabanayo waqtiga la dooranayo xubnaha aqalka sare golaha shacabka gudoonka ee jadwalkan cusub ayaa idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare Roble Qudhiso war ayuu ka soo saaray jadwalka cusub ee guddiga doorashooyinka ay soo saareen go'aanka ra'iisul wasaaraha wuxuu ka yiri arintaas oo idin soo gudbin doonaa goorme ayay bilaabanaysaa diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare iyo waqtiga la dooranayo oo ina xogo gaar ah idinkaga hayo waxa kale oo idin soo gudbin doonaa natiijooyinkii ka soo baxay kulamadii xalay ka dhacay madaxtooyada sidoo kale kulan aalada Zoom-ka ay ku wada qaateen Roble iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor xogo ku saabsan dhammaanba kulamadii dhacay iyo sidoo kale farmaajo oo halis weyn wajahaya qodobadaas iyo kuwa kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiriir channelkeena subscribe noo dhig maleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino soo dhawaada waxaase ku bilaabi doonaa saacadihii ugu dambeeyay ayaa farmaajo waxa uu wajahaya fariimaha jabaada oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan kuwaasoo qaarkood u arkayeen farmaajo weli caqabad uu ku yahay halisna uu ku yahay qabsamida doorashada Soomaaliya toddobaadkan sida wararkan aad ku daawateen senator Muuse Suudi Journal ayaa sheegay in joogitaanka farmaajo villa Soomaaliya weli caqabad ay ku tahay doorashada Soomaaliya asagoo sidoo kale senatorka sheegay dib u dhacyada doorashada ay sabab u tahay farmaajo oo xujooyin siyaasadeed cusub soo bandhigaya asagoo dhinaca kale weli awood muuqato ku leh hanaanka doorashooyinka sida wax loo qabanayo senatorka ka sokow waxa jira sidoo kale xubno badan oo ayna farmaajo u arkay mid halis ku ah doorashooyinka Jarnaal Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad inda cadde ayaa isna sheegay in farmaajo uu bilaabay beegsiga iyo argoos uu ku sameynayo ciidamadii badbaado qaran qaarkoodna uu sheegay in mushaaraadkii laga jartay sidoo kale waxa uu sheegay in farmaajo aan laga aqbali doonin beegsiga sida gaarka ah ee asaga iyo waliba shakhsiyaad kale lagu hayo sidii wararkii aad ku daawateen Jarnaal inda cadde ayaa ka mid noqday dadkii lacagahaas farmaajo uu ka jaray ee ciidamadii la siinayay farmaajo ayaa hadda wajahaya eedeymo waaweyn oo ku saabsan in caqabadu ku yahay doorashooyinka uuna farqaha haysto ra'iisul wasaare Roble ayaa la soo sheegay Qudhiso inuusan xorriyad badan u haysan qabsamida iyo isku dubridka doorashooyinka Soomaaliya ee lagu ballamay taasoo dadka qaarkood ay ku sheegayaan in weli ay jiraan isqabqabsi xoog leh oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka farmaajo ayaa sidoo kale lagu eedeynayaa in dhinacyada badan oo hurinayo sidoo kale beelaha Soomaaliyeed oo qoorta isku gelinayo kaasoo beelaha qaarkood uu ka dalbanayo inay soo sharaxaan oo beesha kale hadda cabasho ay muujinayso dhammaan eedeymahan ayaa kuwa loo soo jeediyay farmaajo inkastoo la soo sheegay in farmaajo eedeymahan qaarkood uu gaashaanka u daruuray laakiin haddana dadka falanqeeya siyaasadda ayaa qaba in farmaajo weli daaha gadaashiisa uu ka maamulayo doorashooyinka Soomaaliya caqabadna uu ku yahay intuu villa Soomaaliya jooga ayaa la sheegay in aad u adag tahay in doorasho wada ogol oo dadka ay wada qanacsiin ay dhacaan maadaama farmaajo uu ka shaqeynayo sida geed dheer mid gaabanba u kori lahaa in mar kale talada dalka uu ku soo noqdo sidoo kale waxa la soo sheegay in farmaajo dhaqamada hadda uu bilaabay ay keeni karto halis amni oo asaga uu galay guud ahaanba dalka oo dhan wararka qaar ayaa sheegaya in xubnaha mucaaradka ay ka shaqeynayaan in sidii mar kale ciidamada militariga ay diidaan muddo-kororsiga caasimada ay ugu soo noqon lahaayeen maadaama farmaajo uu bilaabay dhaqamadii lagu yiqiinay oo qaarkoodna ballamiyuu ka baxay waxa qayb ka ahaa in heshiiskii ciidamada Muqdisho looga saaray waxa qayb ka inaan laga argoosan ciidamada oo aan laga jarin mushaaraadkooda taas oo la sheegay in farmaajo ka baxay heshiiskaasi oo hadda uu bilaabay argoosa iyo in sidoo kale dhaqaalaha laga jarto mushaaraadka la siinayay ciidamada arinta labaad dib u dhaca doorashada iyo sidoo kale in farqaha uu ku dhagay ra'iisul wasaarihi uu shaqeyn lahaa oo dhinacyadan qoorta isku gelinayo xubnaha mucaaradka ayaa u arka talaabooyinkaas oo dhan mid farmaajo waqti uu ku sii dheereysanayo oo raba in villa Soomaaliya uu joogo dadka doorasho siyaasadda ayaa qaba in waqti walba ay suurtagal ay tahay in ciidamada badbaado qaran mar kale ay ku soo noqdaan Muqdisho taas oo halis kale weyn caasimada gelin karta
dhinaca kalena xalay goor dambe waxaa la soo saaray jadwalka doorashada guddiga heer doorasho ee federaalka ayaa xalay soo saaray jadwalka doorashada Soomaaliya aan eego war-saxaafadeed ka soo baxay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu shaaciyay jadwalka doorashada labada aqal ee baarlamaanka kaasoo sida lagu sheegay qoraalka guddiga lagu saleeyay heshiiskii lagu gaaray magaalada Muqdisho 27 July si waafaqsan mas'uuliyiinta guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray hirgelinta doorashooyin degdeg ah waqtigoodna ku dhaca doorasho xur iyo xalaal ah baahi weyn loo qabo inay bilaabato geedi socodka doorashooyinka ayadoo laga hortagayo dib u dhac dambe oo ku yimaada jadwalka doorashada waxaan shaacinaynaa jadwalkii ugu dambeeyay doorashooyinka ayadoo la raacayo shaxda doorashada 29 Juun iyo habraacyadii 27 September iyo 17 September iyo 27 May ee lagu heshiiyay si ay si wada jir ay u wada saxiixaan dhammaan madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada ayaa lagu yiri qoraalka laga bilaabo 17 ilaa 23 bishan ayaa loo aasayay in lagu soo gudbiyo liiska musharaxiinta kuraasta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo laga sugayo madaxda maamul goboleedyada dalka 25 ilaa 28 bisha July ayaa loo aasayay in la qabto doorashada senatarada aqalka sare baarlamaanka dalka iyadoo natiijada doorashada lagu dhawaaqi doono 1 Agoosto dhammaanba xildhibaanada guuleystay ee soo baxay 12 bisha Agoosto waxaa la soo waa labada ilaa 11 bisha Agoosto waxaa la soo xuli doonaa guddiga ay soo xuli doonaan ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka ayadoo 15 bishan ay ku dhawaaqi doonaan xubnaha guddigaasi 20 ilaa 25 Agoosto ayaa loo aasayay soo gudbinta liisaska ergooyinka dooranaya xubnaha baarlamaanka iyadoo 10 September la shaacin doono liiska kama dambaysta ee ergooyinka waxaana 11 September ilaa 10 October la siin doonaa tababarka qaabka doorashada loo qabanayo 7 September ayaa loo aasayay in la qabto araajida musharaxiinta golaha shacabka waxaana 12 September lagu dhawaaqi doonaa magacyada musharaxiinta golaha shacabka 20 bisha September ilaa 5 October ayaa waxaa dhici doonta ku dhawaaqida natiijada kama dambaysta ah iyo shahaadaysiinta xildhibaanada la doortay iyadoo 7 October-na la dhaarin doono waa sida ku cad jaantuuska jadwalka intaas wixii ka dambeeyay October 7 wixii ka dambeeyay waxaa la gudageli doonaa doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya sida waa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka sidoo kale waxaa la gudageli doonaa doorashada xubnaha madaxweynaha Soomaaliya oo isna la dooranayo October sida ku cad jadwalka hadaba jadwalkan ayaa dad badan su'aalo ka keeneen sidoo ku dhaqan gali doonaa hadaba dhinaca kale aan eego muxuu ka yiri Ra'iisul Wasaare Roble habraaca doorasho ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa soo saaray qoraal uu ku soo dhaweynayay jadwalka hanaanka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka jadwalkan waxaa xalay soo saaray guddiga doorashooyinka heer federaal waxaan soo dhaweynaynaa bogaadinayaan jadwalka ay shaaciyeen guddiga maamulaya doorashooyinka heer federaal kaasoo si faahfaahsan u qeexay xilliyada ay qaababka ay u dhacayaan doorashada aqalka sare ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble oo dowlad goboleedyada dalka kaga mahad celiyay dadaalkooda iyo waliba dabacsanaanta ay muujiyeen ayuu ku booriyay in si dhaqso leh loo horgeliyo qabsoomida doorashada qoraalka Roble ayaa intaas loogu daray shacabka Soomaaliyeed waxay naga sugayaan doorasho nabdoon oo daahfuran oo ka fog qof jeclaysi kuna dhacda xilligii lagu heshiiyay sida darteedna waa inaan iska xil saarnaa mas'uuliyadda ay u dhici lahayn arrimahan sidoo kale Ra'iisul Wasaare Roble ayaa mar kale shacabka Soomaaliyeed ugu mahad celiyay inay dulqaadka iyo sida ay ugu garab taagan yihiin dadaalada horumarineed ee horseed ku noqon kara doorashooyinka dalka ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyn Ra'iisul Wasaare Roble ayaa beesha caalamka ugu baaqay in kaalintooda ay qaataan dowladda Soomaaliya iyadoo beesha caalamkana la tuhmayo in ilaa hadda aysan bixin dhaqaalihii lagu talagalay doorashooyinka Ra'iisul Wasaaraha ayaa la soo sheegay in beesha caalamka uu ka dalbaday bixinta dhaqaalaha doorashooyinka oo laga sugayo inay bixiyaan lacag gaaraysa ilaa $40,000 Mareykanka Ra'iisul Wasaaraha ayaana sheegay in wax walba ay ku dhici doonaan jaantuuska ama jadwalka doorashooyinka ay soo saareen
waagaaga haddaba jadwalka doorashooyinka ka soo xalay mar kale madaxtooyada waxaa isku arkay ra'iisul wasaare Roble madaxweyne Farmaajo waxaana la sheegay in si qoto dheer ay kaga doodeen jadwalka doorashada wararka qaar ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo markana lagu cadaadinayo inuu dabacsanaan uu muujiyo wararka qaar sidoo kale la helayaa sheegay in laga yaabo in culays weyn ay ka jirto labada magaalo ee doorashooyinka lagana yaabo jadwalka la soo saaray ka sokow in sidoo kale uu dhaco kulan aalada Zoom-ka ay wada qaataan madaxda maamul goboleedyada ee ra'iisul wasaare Roble lala soo gaabiyo deegaan doorashooyinka oo hal magaalo laga dhigo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay tan iyo shalay laga dhaadhicinayay inuu aqbalo dalabka in hal magaalo lagu soo koobo ra'iisul wasaare Roble ayaa aad u daneynaya in doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan asagoo sidoo kale ka fikiraya in la soo koobo goobaha doorashooyinka ra'iisul wasaare ayaa la sheegay inuu Farmaajo u gudbiyay in aad u adag tahay in laba magaalo lagu qabto doorashooyinka sababta ugu weyn waxa lagu qeexaa dhaqaalaha la hayo aad u yar iyo sidoo kale magaalooyinka qaarkood oo wali mushkilado waaweyn ka jira iyo waliba sidoo kale jadwalka doorashada la soo saaray sidaa darteedna ay rabaan in time-ka la haysto uu noqdo mid ku dhaqan gala oo san dib kaga dhicin si loo helo dhaqaalaha beesha caalamka ayaa la soo sheegay in doorashada la rabo in waqtigeeda lagu qabto beesha caalamka qudheed ayaa dareensan inaysan suurtagal noqon karin laba magaalo waxaana la soo sheegay beesha caalamka qudheed ay ku talisay in la soo koobo doorashooyinka oo hal magaalo laga dhigo si ay u yaraato doorashada waa sida ay u yaraato dhaqaalaha ku baxay labada magaalo iyo in sidoo kale la yareeyo halis weyn oo ka imaan karta magaalooyinka qaarkood gaar ahaan Baraaba oo laga baqayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab in weerar ay ka geystaan ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay tan iyo shalay uu Farmaajo ka dhaadhicinayay inuu aqbalo taageerana go'aanka in la soo koobo doorashooyinka magaalooyinka ka dhacayaan oo hal magaalo laga dhigo in la soo koobo doorashooyinka hal magaalo laga dhigo arintan ayaa la sheegay waxa si weyn u taageersan madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Hirshabelle oo mushkiladu waaweyn ka haysta Garbaharey iyo waliba Beledweyne halka madaxweyne Saciid Dani Axmed Madoobe waa Saciid Dani iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Cabdi Kaariin la sheegay in arintan ay taageereen dhinaca kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariin Qoorqoor ayaa la sheegay in aalada Zoom-ka kulan qaasa uu ku dhaxmaray asaga iyo ra'iisul wasaare Roble Qoorqoor ayaa ku sugan magaalada Gaalkacyo halkaas abaabul dagaal oo ka wada kooxda shabaab ee dhibaatada ku haysta deegaanada Bacadweyne iyo Wasiil oo kamid ah koonfurta Mudug ka tirsan ayaa la sheegay in xalay goor dambe aalada Zoom-ka ay ku wada hadleen wax badan lagama oga kulanka aalada Zoom-ka ku dhaxmaray Qoorqoor iyo ra'iisul wasaare Roble laakiin wararka ayaa sheegay in kulankooda muhiimada ugu weyn u daarnaa ay tahay xal u helista arrimaha doorashooyinka Qoorqoor ayaa la sheegay in si weyn u dareenayo in doorashooyinka hal magaalo lagu qabto Dhuusamareeb isagoo walaac ka muujinaya doorashada lagu qaban doono magaalada Gaalkacyo ayaa la sheegay in ka jiraan xoogag oo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariin aysan amaradiisa ku shaqeyn oo aysan ka amar qaadan taasoo cabsi weyn keeni karta in shakhsiyaadka uu rabo Qoorqoor ay Gaalkacyo inay ka soo baxaan ay ku adkaan karto waxaana la soo sheegay in magaaladaas uu ku xoogan yahay Axmed Macalin Fiqi oo ciidamo badan ku diyaarsaday wasiirka amniga Galmudug oo raba in mar kale kursigiisa xildhibaannimo awood xeelad iyo farsamo inuu isku soo saaro kulanka dhaxmaray Qoorqoor iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa muhiimadiisa ku qotoma xal u helista doorashada qodobadaas ayaa ugu weyn saaxiibada wararkeena subax wixii warar soo kordha oo doorashooyinka la xiriira wararkeena galabnimo ayaa ku daawo doontaan nabadgelyo